إنا لله وإنا إليه راجعون فضلا قف كستا أرنتا يوسن كآموسن سومالي متهي عد اللويرا عد كلاماها وأذيك وأنيك إسلامتنا أجيدان وحي صهر دكتي بارلمان نضا ورقدنا أجيدان ولا بوجيلو markay shacabku horjoogtana waxay dhihi kufsi waxaasay ka hadli baarlamaanadan waxaan ay soo hordhigtay qof walba wuxuu og yahay in waxaan aqligeeda aysan ka keensanin ee gaala ka dambayso marka waxa su'aala maxay gaaladu ka faa'iidi in Soomaali raggeeda rag ay aadaan dumarkana dumar ay aadaan war faa'iido weyn ugu jirta faa'iidada ugu jirta waxay tahay in la burburiyo ummadda laana ummad hadii la burburinayo laba meel laga soo maraa kow al-farq in ayaga lagala qaybiyo in ayaga la isku diro laba al-macaasi in lagu dhaxsiidaayo fitno iyo macaasi labada hadii mar laga helo ummadda way burburtay haday burburtana de kuwi burburiyay faa'iido ugu jirta inay dhaqaale iyo ganacsi iyo waxa ay rabtaan ay ka sameeyaan sidoo kale ummad waxa lagu burburiyaa lix meel laga soo maraa ummad hadii la burburinayo kow waxa ka ah diinta waxa ku hagaya diinta way qof haduusan diin lahayn mar xoolo waxba ma dhaamo gaalku diin u leeyahay hinduuga diin u leeyahay waxaasi uu wato in laga leexiyo xoolo laga dhigo waxa ay rabaan ay ka sameystaan mid labaad in wax barashada laga hadlayo wax barashadu aqliga kubcisa in wax barashada aqliga kubcinaysay eber laga dhigo midda ay rabaanna ay ku qoraan midaasoo waxba aan faa'iido kugu jirin ilaa ina warar ka qaadamooyay aanan aqligaagana kubcinayn wax aqliga kubcinayo de waa quraanka iyo sunnada in wax ay rabaan ay ka sameystaan warhooy gaala way soo dhigatay feejignaada midna insha Allah ta'ala qof kasta ha habaaro qof kastaba midan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uqubad degdeg inuu ku rido war qof kasto habaartan